السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal waa markale fuuriyo cusub. dadka qaar ayaa iyagu og ama aanan ogeyn isticmaala dabeecado ama ereyo dhaawac gaarsiiya dareenka qalbiga dadka ay la macaamilaan. waxay noqon karaan tilmaamo sharaf dhaca ama dhaleecayn joogto ah ama qofka oo lagu yeedho magac uusan raalli ka ahayn. dabeecadaha ama dhaqamada noocan ah ayaa dadka u geysta saameyn aan wanaagsanayn. si kastaba ha ahaatee, waxaa adag in aan wax ka qabanno dadka leh dabeecadahaas, balse waxaan wax ka qaban karnaa qaabka aan uga falcelinno haddii ay xaalad noocaas ana qabsato. haddii uu qof isku dayo inuu hoos kuu dhigo, raac qaabkan si aad u samayso falcelin guul ku gaadhsiisa. iska ilaali in aad xanaaqdid. dadka qaar falcelinta ugu horreysa ay sameeyaan ayaa ah in ay xanaaqaan marka ay la kulmaan qof hoos u dhigay sharaftooda ama qiimahooda. taasna waa wax dabiici ah, laakiin xanaaqa ayaa noqon kara waxa qof kale uu kaa raadinayo. xanaaqa ayaa qofka ka dhigi kara inuu khalad sameeyo, taasna waxaa ka faa'iidaysta qofka ficilkan aadan jeclaysan kugu sameeyey, isaga oo u arka in ay kaa guulaysteen. haddii aad xanaaqdo, waxaa yaraanaya in aad maskax degan ku fikirto, wuxuuna kaa hor istaagayaa in aad samaysid difaac saxa. markaa waxaad iska ilaalisaa inaad xanaaqdo. isku day deganaan inaad hesho, xitaa xaaladda hadday mudan tahay in aad xanaaq muujiso. waxaad ka fogaataa meesha xaaladdaasi ka dhacday. haddii laguu sameeyo arrin aadan jeclaysanayn, waxaad ka tagtaa ama aad ka fogaataa meesha ay xaaladdaasi ka dhacday. danta ugu weyn ee qofka kuxmeeyu kaa leeyahay ayaa ah in uu rajo ka qabo inuu kugu ceebeeyo dadka kale. waxa uu qofkaasi kaa raba ayaa ah in aad samaysid falcelin aan wanaagsanayn maadaama uu kaa xanaajiyey, taas oo keeni karta adigoon is ogeyn in aad samayso wax foolxun. haddii aad ka fogaato, waxaa meeshaa ku hadhaya hadalkii qofkii dhahay oo keliya, waxaana meeshaa ka baxaya saamaynta uu adiga ku lahaan lahaa. waqti inta aadan falcelin. markay tahay falcelin, waqtigu waa muhiim. marka aad dhibsid hadal uu qof kugu yidhi ama ficil uu kugu sameeyey, waxa ugu fiican oo la sameeyo waa inaad qaadatid neef qoto dheer. sidoo kale qaado waqti si maskaxaadu uga shaqayso waxa dhacay iyo sida ugu fiican aad u jawaabi lahayd. iska ilaali inaad hurtaba dagaal gashid. haddii aad fursad siisid maskaxdaada, waxay u baahan tahay inaad heshid waddo aad uga guulaysato qofka hadallada xun kuu isticmaalay ama kugu tilmaamay. u aqbal ama u diida cayda qaab saaxiibtimo leh. dadka qaar ayaa joogtaya inay isticmaalaan hadallo qalafsan ama foolxun, magacyo dadka ay dhibsadaan, ama inay wax ka sheegaan dadka si ay og yihiin ama samayska jidhismoodkooda. waxaa adag dadka noocaas ah in aan wax ka qabanno dabeecadahooda, balse waxaa inoo furan in aan ka guulaysano falcelinteenna. haddii aad la kulanto qof noocaas ah, isticmaal labadan qaab. aqbal adiga oo degan, u sheeg qofka ku caayay in aadan waxba ka qabin hadalkaas ama magacaas uu kugu yeedhay, una sheeg in aadan kala jeclayn maadaama qofkaas uu doonayo inuu kaa xanaajiyo. waxaa meeshaa ku soo xidhmaya faa'iiduu ka heli lahaa in uu kugu yeedho magacaas ama saamaynta hadalladaas ay kugu samayn lahaayeen. sidaa darteed, qofkaas wuxuu meeshaa kaga hadhayaa isticmaalka hadalkaas ama magacaas. iska diid adiga oo degan, u sheeg in aadan raalli ka ahayn in magacaas lagugu yeedho ama hadalladaas lagu isticmaalo. waxaad u sheegtaa in ay khaldan yihiin, balse aysan wax dhibaato ah kuu keenin. waxaad u sheegtaa in ay khaldan yihiin balse aysan wax dhibaato ah kuu keenin. haddii ay sii wadaan isticmaalka, u sheeg in aadan kala jeclaynin. weydii in ay kuu sharaxaan ujeeddadooda. haddii uu qofku hodho hadal aadan jeclaysanin, waxaad si saaxiibtinimo u weydiisaa in ay kuu sharaxaan. waxaad weydiisaa meesha ay ka maqleen iyo sababta ay kugu isticmaalaan. in aad meeshaa ku furto wadahadal waxay kuu sahlaysaa inaad ogaato meesha uu hadalkaas ka yimaaday. waxaa meeshaa ku ceeboobaya ama xishood ku dareemaya qofka hadalkaas ku dhahay, waxayna iska ilaalin doonaan in ay mar kale sidaas kula dhaqmaan. iska indhatir qofka ku caynaya. faa'iidada ku jirta inaad iska indhatirto qofka waxaadan jeclaysan kugu tilmaama ayaa ah in ay dareemaan miisaankaaga, sababtoo ah in aadan qiimo u yeelin hadalka qofka dhahay iyo waxay dhaheenba. markaad waxba ka soo qaadin caydooda, waxaad kar u qaadday sharaftaada, waxaadna meeshaas ku muujisay in sharaftaga qiimaha aad leedahay. erey uu qof dhahay uusan waxba u dhimaynin, waxaa meeshaas ku ceebaba qofka sida xun u hadlay. hadalka ugu dambeeya aan kula wadaagaya ayaa wuxuu yahay
ka fogow dadka dhaqamada sunta ah leh. mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad la kulanto dad mar walba jecel inay khilaaf ku dhex jiraan. dabeecadahooda ha xukumin, waxaa laga yaabaa inaysan awood u lahayn xakamaynta shucuurtooda. si ugu sahlan aad ku kala nabadgeli kartaan ayaa ah in aad joojiso la kulankooda. haddii aad ku khasban tahay inaad la kulanto, isku day in la kulankiinu aad u gaabnaado, kuna ekaado keliya danta kugu khasabta inaad is aragtaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.